Sanad kasta marka la gaaro maalinta ugu horreysay bisha afaraad ee sanadka miilaadiga, waxaa wadamo badan oo reer galbeed u badan looga dabaaldegaa maalinta beenta adduunka loogu yeero, taas oo muran badan ka taagan yahay kuna guuldareysatay inay noqoto munaasabad caalami ah. Hase yeeshee, waxaa sida muuqata wadamada reer galbeedka ay maalintani ku leedahay taageerayaal badan iyo shacbiyad ku camal fala oo sideeda ugu xisaabtama. Waa maalin sida ka muuqata ay caadaysteen in been la isu sheego oo waxyaabo aan jirin dadka loo sheego. Waxaa dhacda in qof loo sheegay geerida qof kale oo uu aad u jecel yahay oo been ah, iyo waxyaabo kale oo wada been ah, taas oo marka la isku qabtana lagaga jawaabo beentii 1 Abriil ayay ahayd. Sida dadka aaminsan ay ku doodayaan, dadka dhibanayaasha beentaas loo sheegay ayaa loogu yeeraa doqomadii maalinta beenta adduunka ee 1 Abriil. Daawade, beentu waa xaaraan ay diinteennu inaga reebtay oo in la isku sheego reeban tahay Abriil iyo xilli kaleba. Waxa kale oo sidaas oo kale xaaraan ka dhigaya diimaha samaawiga ah iyo dhaqanka suuban. Haddaba, sida wax kasta oo aadamigu caadaysta u leeyihiin asaas iyo meel ay ka soo dhambasheen ama xigteen, ayay maalintan u leedahay meel ay asal ahaan ka soo jeedo oo loo raaco. Walow si weyn la isugu khilaafsan yahay oo xitaa taariikhdeeda been badan laga sheegay. Sida inta badan dadka aaminsan maalintan ama u sacbatuma ay ku doodayaan, waxaa maalinta beenta Abriil bilowgeeda la isu sheego laga soo xigtay sheekada The Canterbury loo yaqaano oo uu qoray Jeffrey, oo ahaa gabyaa sheeko xariir oo Ingiriis ah, kaas oo noolaa qarnigii 14aad ee miilaadiga. Run ahaan, beenta 1 Abriil ayaa bilaabatay markii la sameeyay taariikhda cusub ee adduunku ku dhaqmo oo loo yaqaano Georgian calendar, kaas oo uu qarnigii 16aad bedelay boqorkii Georgigii 3aad ee Roomaanku. Waxaanu kalendarka cusub ee miilaadiga loo yaqaano iminku uu bedelay tirsigii ka horreeyay ee sanadku ka bilaaban jiray 25 Maaj oo ah markuu gu'gu ku curto inta badan dunida, kaas oo ilaa 1 Abriil loo dabaaldegi jiray curashadiisa. Hase yeeshee, uu mar qura ninkani curashadiisii sanadka u bedelay bisha January oo uu 2 bilood iyo dhowr iyo 20 cisho dib u raray rasmi ahaan beenta. 1 Abriil waxay warbaahinta ku bilaabantay sida la rumaysan yahay qarnigii 17aad, xilligaas oo jariirad ka soo bixi jirtay dalka Ingiriisku qortay sheeko been ah oo ay kaga been abuuratay Nabi Nuux calayhi salaam. Jariiradan ayaa waqtigaas sheegtay in Nabi Nuux calayhi salaam uu markii duufaanku dhammaaday uu shimbir xamaam ah diray, taas oo uu ka dalbaday inay soo eegto meel biyuhu ka yaraadaan oo doontu istaagto. Waxaana sheeko beenaadani ay jariiradu qortay sheegtay in shimbirtii xamaamku soo noqotay iyadoo sheegaysa meel duufaankii baabi'iyey, kadibna xayawaanadii kale ee doonta la socday ka wada yaabeen. Jariirada ayaa ku dooday in beentu maalintaas uu ku beegnayd 1 bisha afraad ee tirsiga miilaadiga cusub ay bilaabantay. Waxay aragti taas oo kale la mid ah qabtaa jariirada toddobaadlaha ah ee Harper ee dalka Mareykanka ka soo baxda, oo iyaduna lafteedu beenta jariirada Ingiriisku baahisay mid la mid ah qortay dhowaan. Beentan ayaa reer galbeedku caadaysteen ee maalinta ugu horreysay 1 bisha Abriil lagu asteeyay ayaa dad badan halis gelisay noloshooda, kuwo kalena isku dirtay xumaan badanna ka dhex abuurtay bulshooyinka ku dhaqma. Waxaanay dad badani oo mas'uuliyiin iyo waxgarad u badani ku taliyeen in si heer caalami ah loo mamnuuco, laguna daro dambiyada caalamiga ee booliiska dunida Interpol loo adeegsado inay ka howlgalaan duniduna iska dhiibto dadka sameeya. Dhammaan qisooyinka la xiriira maalinta 1 Abriil ee beenta la caadaystay kuma jiraan sababa maalintaas in been la sheego ama loo sacabatumo qeexaya. Tusaale ahaan, sheekada The Canterbury ee ah sida rasmiga ah loogu tilmaamsado waxa ay ku kooban tahay beeno kala duwan oo dad iyo xayawaano laga warinayo, kuwaas oo ku tiri kuteen wada ah. Daawade, adigu qayb ma ka tahay dadka maalintani sheega ama sabab ka dhigtaa inay sheegaan been maadaama ay tahay 1 Abriil? Jawaabtaadu waxa ay noo tahay muhiim. Fadlan hoos noogu reeb.